taxaniin wuxuu ku bilaabanayaa gabar lagu magacaabo Shawantay oo soo xeer ka soo kacday hurdada ayadoo u degdegsay inay raacdo baska jaamacadda markii ay baskii soo fuushay kadib waxay isku dayday inay marsato indhakool si ay u qurxiso muuqaalkeeda balse waxaa ka dhacay make-upkeedii waxa ay leeyihiin lagu magacaabo oo aad soo jiidasho leh isla markiina uu soo qaaday wana siiyay aad ay u mahadcelisay ayadoo soo bandhigtay buskud markii ay baska saarnaayeen markii ay baskii ka soo degtay kadib ayaa waxay damacday inay cabto biyo kaasoo ku daatay jirkeeda isla markii waxa arkay Jo oo ah wiilkii ay baska isku baranayeen aad ay u naxday gacanteeda ayuu qabtay wuxuu ogaatay inuu yahay wiil naxariis badan waxaana ku dhahday maadsani Jo dhanka kale filimkan waxa ka arkaynaa wiil lagu magacaabo haano sugaya baska jaamacadda asigoo ku mashquulsan taleefanka waxa uu imaaday gabar lagu magacaabo Rosa markii ay la sheekaysatahan ay weydiisay inuu jaamacad u socdo in kale waxaana la wadaagtay inay isku tagsi raacaan ee lacagaha isku darsadaan si dhaqsaha si ay jaamacad u tagaan maadaama uu baska daahid badan yahay Rosa markii ay tagtay jaamacad kadib waxay aragtay saaxiibkeeda Leo oo ah lamaanaha ugu caansan jaamacadda dhan kale Shawantay u sheegtay saaxiibteeda Rosa inay la soo kulantay wiil naxariis badan baska gudihiisa Rosa ayaa ku jawaabtay ragga qiyaanaylaasha inay mar walba naxariis badan yihiin sikadiisa ayaa kor waxa ugu muuqda Jo oo wiilka jaamacadda ku cusub Shawantay ayaa u tagay isla markii ay asxaabteeda waxayna ka codsanayaan inuu sawir ka qaado asigoo sawir ka qaada ayaa wuxuu arkaya Shawantay inay timaheeda wax ka khaldan yihiin markii uu damcay inuu tinta u toosiyay sikadiisa waxa meesha ku soo galaysa Rosa waxayna arkaysaa inay isku soo dhawaanayaan daqiiqada kadib markii ay galaas galaan waxa galaas soo galaya macalinka oo u sharxay maadada fiisigiska projecti galaaska ayaa waxa lagu soo bandhigaya Shawantay iyo Jo sawiradooda Shawantay ayaa zaad ugu xanaaqaysa waxayna ka shakinaysaa saaxiibteeda Rosa oo agteeda fadhisa isla markii Shawantay waxay Rosa weydiisay qofka projecti sawirada si khaldan ugu faafiyay waxayna ku jawaabaysaa ma aqaan qofka sidaas sameeyay iyadoo xanaaqsan ay Shawantay ka tagaysaa Rosa wayna soo cararaysaa dhowr daqiiqo kadib ayadoo cararaysa ayaa waxa soo da'ay roob waxaana horteeda ka soo baxaya Jo kaasoo ah wiilkii isku barteen baska garabkeeda ayuu soo istaagaya si ku dheehan naxariis si uu ugu ilaaliyo qow roobka Shawantay waxay xusuusanaysaa sidaan camal yaraanteedii wiil u garab istaagi jiray markuu roobka imaado oo ay weydiinaysaa waxay dhahaysaa adiga ku matay wuxuu ku jawaabay 12 sano ka hor sidaan yaraantaadii kugu naxariisan jiray ayaan ilaa haddana kugu naxariisanaya shilkii dhacay hadda ka hor ma garanayo sidaan xanuunkooda iskaga yareyn karo waxa kaliya aan ku samayn karayaa inaan nafteeda ku hori karo oo mar walbana ku garab istaagi karo inkii xige Jo ayaa bilimay Shawantay ayadoo sii jeedayo sikadiisa gadaal ugu imaaday laabta ayuu nageliyay asigoo u sheegay mar kale inuu leeyahay naxariista yareyntiis oo lahaa oo kale mar labaad Rosa ayaa aragtay oo ay nala yaabtay labadooda wax ka dhaxeeya Jo iyo Shawantay ayaa naxin markii arkeen Rosa Shawantay ayaa dareenkeeda qaritay intaan kadib inay cabsi ku jiri karin waxayna u sheegtay in Jo oo aad u jeceshahay oo yaraantoodii inay isnaqayneen Jo ayaa u sheegay Shawantay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ee ugu tagaan meesha ayagoo gaariga saaran waxaa kor ka duubay Rosa oo ka faafinaysa arrimahan xun Rosa markii ay gurigeeda imaaday muuqaaladii ee duubtay iyo dhan ay baraha bulshada ku faafisay iyo gruubka jaamacadda wixii markii jaamacadii la imaaday dadkii oo dhan waxay soo wada fiirinayaan Shawantay waxay dareemaysaa dhibaato aad u weyn iyo cabsi guriga markii ay imaatay galkii dambe Shawantay hooyadeeda ayaa baraha bulshada ku aragtay waxa laga sheegay gabadheeda waxayna u sheegtay waxaas oo dhan inay waxba ka jirin Shawantay way murugsaneed maalintii xigta guriga waxa uu imaaday ardaydii isku galaaska ahaayeen wiil lagu magacaabo Hino ayaa si qaas ugu raalgeliyay wixii saak ka dhacay jaamacadda Hino wuxuu aad u jecel yahay Shawantay asigoo hor u badbaaday ayadoo ku dhex rabto mato dhan kale filimka waxa ka arkayna Rosa oo qaratay dambiyadii ee sameysay oo dhan iyadoo saaxiibteeda weydiisanayso cafis dhan kalena waxa ka arkayna ardaydii galaaska oo dhan oo u hambalyanaya Jo iyo Shawantay jacaylkooda filimkeena meeshaas ay ku eegay